wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa beenaysay oo meesha ka saartay in dawladdaasi ay faragelin ku hayso arrimaha siyaasadda gudaha ee dalka Soomaaliya. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu yidhi dawladda Kenya waxa ay ka qoomamaynaysaa tallaabada nasiib darrada ah ee ay qaaday dawladda federaalka Soomaaliya oo ka codsatay safiirkii Soomaaliya u joogay dalka Kenya inuu dib ugu laabto dalkiisa si uu wada tashi ula soo sameeyo madaxdiisa. Tallaabadani waxa lagu sheegay inay ku salaysan tahay eedeymo la xidhiidha in dalka Kenya uu faragelin ku hayo dalka Soomaaliya. Bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Kenya ayaa sidoo kale lagu sheegay in aanay sax ahayn oo aanay saliya raadtoona lahayn wararka sheegaya in Kenya ay faragelin ku hayso arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya. Jawaabta Kenya ayaa ka dambeysay kadib markii dawladda Soomaaliya maalintii Axaddii u yeedhatay safiirkii ka joogay dalka Kenya, halka safiirkii Kenya ee Muqdisho ku sugnaana lagu wargeliyay in uu dalkiisa dib ugu laabto. xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cali Nuur oo la hadlay warbaahinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay dib ugu yeedhatay safiirkeeda Kenya Danjire Maxamed Axmed Nuur Tarsan, waxaana uu sidoo kale sheegay in safiirka Kenya ay ku amreen inuu u laabto dalkiisa si uu wada tashi u soo sameeyo. in wada tashi ay ugu yeerto safiirkeeda u fadhiya dalka Kenya. sidoo kale dawladdu waxay go'aansatay oo la faray safiirka Kenya ee Soomaaliya in uu dalkiisa wada tashi ugu laabto. dawladda federaalka Soomaaliya waxaa u muuqatay in dawladda Kenya ay si bareer ah u faragelinayso umuuraha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay Kenya ku eedeysay in madaxweynaha Jubbaland ay ku cadaadinayaan inuu fuliyo ajandayaashooda siyaasadeed, taasi oo carqaladaynaysa heshiiskii siyaasadeed ee doorashada Soomaaliya isla markaana ka hor imanaysa habdhaqanka diblomaasiyadeed ee dawladaha dariska. waa sida ay sheegtay Soomaaliya. xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Maxamed Cali Nuur ayaa xusay in dawladda federaalka Soomaaliya aanay marnaba aqbali doonin fal walba oo qarannimada Soomaaliya iyo amnigeeda dhaawacaya. waxaana xusid mudan in tan iyo sanadkii la soo dhaafay xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya soo maray marxalado kala duwan oo ay wehelinayeen xiisado siyaasadeed. labadani wadan ayaa si gaar ah u wadaagay xasarado siyaasadeed oo salka ku hayay maamul goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya iyo kuwa la xiriiray dhinaca muranka badda, iyadoo ay sii kordhayaan xasaradaha siyaasadeed ee u dhaxeeya Muqdisho iyo Nairobi. ayuu xiriirka labadan dal gaadhay meel adag sanadkani kadib markii uu soo laba kacleeyay muranka dhinaca xadka badda ee u dhaxeeyay labadani wadan waa Soomaaliya iyo Kenya, halkaasi oo la sheegay inuu ku jiro kheyraad badani. waxaana xusid mudan in sanadkii 2015 ay dawladda Soomaaliya dacwad ka dhan ah Kenya oo la xidhiidha muranka badda u gudbisay maxkamadda caalamiga ee ICJ, waxaana ay garsoorayaashu oggolaadeen waqtigaasi in la dhageysto dacwadan. walow dalka Kenya uu raadinayay in hab kale lagu xalliyo arrimaha la xidhiidha muranka badda. sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa horaantii sanadkani hakisay qaadka iyo duulimaadyada ka imanayay dalka Kenya, iyadoo ku doodaysay in tallaabadani ay u qaaday si ay u xakamayso cudurka COVID-19, balse markii dambe dawladda Farmaajo ayaa xayiraadda ka qaaday duulimaadyada rakaabka. inkastoo uu qaadka
weli saaran yahay xayiraad. Labada dal ayaa waxa ka dhaxeeya arrimo badan, waxaana jira qaxooti badan oo Soomaaliya oo ku sugan xeryaha ku yaala gudaha dalka Kenya. Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegaya in tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya ay ka dhalan karaan saameyn badan, maadaama oo aanay jirin xidhiidh wanaagsan oo u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya, taasi oo keeni karta guuldarrooyin siyaasadeed oo ay horseeda arrintani, maadaama oo ay jiraan siyaasiyiin badan oo Soomaaliya oo xidhiidh dhow la leh dowladda Kenya. Sidoo kale dowladda Kenya ayaa hore loogu eedeeyay inay faragelin ku samaysay doorashadii maamul goboleedka Jubbaland ee uu mar labaad ku soo baxay madaxweynaha haatan ka taliya maamulkaasi ee Axmed Madoobe.